السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودياشا ku xiran kanalka Dooreysatiya ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta oo aan uga hadli doono shamaamka mabatiiq qofba magac buu u yaqaanay waa mid kamid ah qudaarta ugu caansan ee dunida ee loo isticmaalo cabitaan ahaan iyo cunno ahaan wuxuuna asal ahaan ka soo jeedaa ama uu ka baxaa geedkaasi dalka Shiinaha. Faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo cunista iyo cabista shamaamka ama batiiqa sidoo kale shamaamku wuxuu aad ugu wanaagsan yahay dadka qaba macaanka maxaa yeelay macaanku uu nidaamiyaa waana xakameeyaa macaanka sidoo kale shamaamku wuxuu kor u qaadaa caafimaad qabka ilkaha kuwa cirad dhiiga sidoo kale kuwa leh gaaska sidoo kale shamaamku wuxuu aad u wanaajiyaa una xaqiijiyaa caafimaad qabka maqaarka dhanka kale shamaamka waxa ku jira awood aad u badan oo soo saarta sumaha ku jira jirka sidoo kale shamaamku waxa uu wanaajiyaa caafimaadka indhaha dhanka kalena shamaamku waxa aad uga dagaalamaa kansarka ama cudurka loo yaqaan kansarka sidoo kale cunista shamaamka ama batiiqa wuxuu kor u qaadaa caafimaadka sanbabada waayo wuxuu u wanaagsan yahay sanbabada shamaamku waxa uu dadka buuran ama cayilan ka caawiyaa in ay miisaankooda ku daciifiyaan ama hoos ay ugu dhigaan si dabiici ah sidoo kale batiiqa ama shamaamku waxa uu la dagaalamaa warwareerka iyo stress-ka ama buuqa ugu dambeyntii shamaamka waxa uu nidaamiyaa ama kor u qaadaa difaaca jirka fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe kana furo siina share garee si ay ugu faa'iideystaan asxaabtada kuwa aad jeceshahay.